waxaa sharaf noo ah in maantay aan ka soo qayb galno kulan wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ay saxafiyiinta Jubbaland u qabanayso si sare loogu qaado wacyiga bulshada ee ku aadan nidaamka federaalka. waddankeena waxaa moodaa inuu ku jiro xaalad dhisme dowladeed, taasi oo ay system ama hab dowlo oo aan dooranay hadda aan isbarayno. saxafiyiintuna waxay safka hore kaga jiraan dadka la rabo in ay bartaan dowladnimada si ay bulshada u gaarsiiyaan fahamka dowladnimo. nidaamkan federaalka ah waa nidaam ku cusub waddankeena 2000 yaa fulinayo doorka saxaafadda maxay tahay federalismka markii wacyigelinta ay noqonayso waxyaalaha aad wacyigelinta ku sameynaysiin saxaafadda waxaan ogsoonahay inay tahay indhaha bulshada. dadku waxay akhristaan ayay aaminaan. waxaan ogsoonahay maanta haddii social media ay noqoto iyo haddii idaacad ay noqotaba in dadku waxa informationada ay ka qaataan ay yihiin meelahaas ilahaas. marka haddii fariimo wanaagsan loo gudbiyo waa la qaadanayaa, fariimo xun haddii loo gudbina waa wax walba been baa la gudbin karaa, run baa la gudbin karaa. marka waxaan ujeedkeena maanta waxaa weeyaan waxaan hadda rabno waxaa waaye in la helo daadejintii maamulka si degmo iyo tuulo uu u gaaro maamulkii uu u gaaro oo federaal dhab ah oo dadkii wada gaaray oo dalka hanto oo dadku ay ayagu aayahooda iyo mustaqbalkooda meeshay aadahayaan ay maaragtay ka taliyaan in la gaaro. waxaa lagu gaari karaa dowlad keliya ma wadi karto. waxaa lagu gaari karaa in ay kaalin mugle ay ka qaataan bahda saxaafaddu. saxaafaddu waa indhihii ummadda waaye. waxay bedelaan dal jaha u soceynay ka bedelaan. waxay dhisaan dal burburay bay saxaafaddu dhistaa. dal weyn oo dhisanna way dumisaa. marka ma rabna hadda kii duminta ah. waxaan rabnaa bahda saxaafadda ee Jubbaland inay ka qayb qaadato dhismaha maamul daadejinta iyo federalismka inay ka qayb qaadato.